munaasabadan oo ahayd mid loogu dabaaldegaya xuska 18 May oo ku beegan 35 guuradii ka soo wareegtay markii ay Somaliland xornimadeeda dib ugala soo noqotay Soomaaliya ayaa waxa si weyn loogu dabaaldegay maalinnimadii shalay magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxa soo abaabulay dhalinyaro reer Somaliland ah oo iyagu isku xilqaamay in sanad walba ay qabtaan xaflad sidan oo kala ah taasoo ay ugu tala galeen inay isku arkaan familiyada reer Somaliland ee ku dhaqan gobolka Minnesota. ugu horeyn waxa munaasabadaasi loogu mahadnaqay dhalinyaradii isku xilqaamay qabanqaabada munaasabadani dadkii aan hal iyo habeen ka seexanin ee xafladan isku soo dubarday ilaa saaka 9 subaxnimo halkan taagnaayeen Sabaax Yuusuf aad u mahadsan tahay Samiira Axmed waxa ku xigta Amran iyo Samiira waa behind the scene soo waa gablaha hadda u soo kacay community-ga aniga Sabaax waan idinku badanay laakiin waxaan leeyahay labada gabdhood ku soo dhawaada insha Allah sida community-ga mar walba ugu shaqeynaysaan event kasta la qabto wax kasta haystaan oo dhigtaan waalidii baahan yahay kuwiina kale audience-ka ku jira haddana waxaan leeyahay inaan hore u soo istaagtaan oo community-gana part noqotaan waxa hala sameeyo waa laga fiican yahay qof walba wixii aad la jeceshay community-ga inaad part ka noqoto oo samayso adigu isku day insha Allah rag iyo dumar bana waan u sheegay community-gu inaga wada dhaxeeya Soomaaliland way inaga wada dhaxaysaa way dalkeena waan wada jecelahay laakiin si events badan oo sidoo kale ay ugu dhacaan oo aynu inagu isku barano caruuraheena isku bartaan wadankeena aynu xitaa sidaynu horumarin u gaarsiin lahayn ama waxaynu u qaban lahayn uga tashano waa inaynu inagu marka hore isu nimaadno soo marka community events lady ka yeedho sidoo kale uga soo qayb inta gabdhahan ku dheeraaday laakiin waxa kale foosina waxaan leeyahay every single year banaanka lagu dhigay event uu ka maqnaa ma jirto lama arko facekiisa social media kuma arkaysaan laakiin hadda aragtaan ciyaaraha iyo waxa soo dhan foos bay noo qaabilsan isaguna aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa kale aan idinku cusbayn Ismaaciil Sandheere gudoomiyihii shanaad weeyaan baan malaynayaa imsa ka dambeeyay hadda karmadan ba ka dambeeyay hadda balaakiin gudoomiyihii hore ahaan jiray isaguna waa behind the scene lama arko balaakiin waa dadka naga dambeeyana support gareeyo insha Allah wax kasta aan la nimaadnaan ku dhiraado events ka marnaa inaan sameeyno haday shaqo noqoto haday noqoto lacag haday noqoto meel wax laga soo sameeynayo soo aad baad u mahadsan tahay yaa anigoo hadal badan oo shirin la yiraahdo وما سنتين وحنا جمع قن عبد الناصر إفراح بمقن وحنا جمع قن منا so often إفراح نسولد وبالله هاي how many of you guys know that in إفراح you know هاي pharmacist in Somaliland أو pharmacist أو ما أنت stage كده هرتاجن أو يدا شقة بيس هاي سهويا هذانا still كشقين سشقوين كي community جا so إفراح نكسر دوين إنه واحد بلا عصب سنة كل kusoo biiray community events ka qabtaan insha Allah waxaan leeyahay dhamaantiin aad u mahadsantihiin laba kalmadood waxaynu ugu soo xiri doonaa Ismaaciil iyo Sabaax waxa kale halkan uga mahadnaqayaa gudoomiyihii jaaliyadu isaguna la fadhiyo waxaan leeyahay thank you very much Assalamu alaykum happy 18 May marka u horeysa bishan oo dhan naga iska nahayn 15keedii 16keedii maantana waynu soo khatimayna waa bisha 30keedii dadka badankoodina way noo soo socdaan baan baqaynayaa horta marka hore waxaan idin leeyahay congratulations reer Somaliland dhammaan meel kastoo joogtaan intiina quruxda badan ee halkan soo fadhida waxaan idin leenahay sanad guuro wacan waxaan filayaa waan 35 sanay number marka 35 ugu dhahdo waa number buuxa waa numberada waxaan baqaynayaa nakiga ah 35kii اعترافكنا واسكو باغمن marka اعترافكنا waan soo dhaweynaa insha Allah ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa اعترافyo kale dawlado kale qaar badan way soo socdaan saaxiibadeena cusubna waan soo dhaweynaynaa marka inta naga imaado reer Minnesota waxaan dinahay gacmaha la isqabsado hanga dadaalo dawladdu xagga ka dadaalayso dawladdeena Somaliland buug weyn been la soo kala baxdo Middle East iyo waxa isku banaalisay dhulka reer Minnesota anaguna ka kownahay buugaag weyn baan la soo baxnay imika laga bilaabo waynu shaqo tageynaa si aynu اعترافkaas ay dhaliyeen inaguna u sii xoojino waxaan dinahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharaf bay tahay inaan hortiina soo istaago
waxaan dinayaa happy 18 May haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sabaax groupkaygu uu badnaa barnaamijkan isku soo dabariday focuskayguna wuxuu ahaa familiyada iyo maaragtay iyo dhalinyarada inaanu waqti fiican aan qaato niman aad u firfircoonaa Cabdinaasir iyo ay ka mid yihiin iyo inaan kale oo Muna iyo Samahin iyaguna way noo soo socdaan dadku waa maanta shaqaynayeen maanta aad arkaysaan iyo barnaamijka isku dabadhacsan dadkii saako dhan ka shaqaynayay baan ahaa marka insha Allah iyakana waxaan waynu mahadcelinaynaa Sabaax baana ku soo dhaweynaya walaasha Sabaax oo aan mar kasta ka seexan ka faliisan ma garanaysaa active-naanta xoog furnaanta xoogeeda maankeeda intaba thank you ayaan iyadana leeyahay marka waa kaas ku soo dhaw Sabaax waad mahadsantahay Ismaaciil dhammaan reer Somaliland waa idin salaamay Somaliland ما يدري مقلة Somaliland ما شاء الله وأنا هذا لنا يا نستنبيت كcommunity جيجنا هل كانت كواركتان يدد بدنو community جيجا عدو تاجرة وهل كان لا فردية هذا النقطة وجاسية ذا عقل ذا إن وضياشة إن وذات ذا إن محي هيتوي إن تذك متعلمين هل كان هرتينا فردية أد بنوجم هل علينا يا قرح من الدين الفلسطيني هرتنا جرها على النقطة وسوين بان idinku mahad celinayna aad ka soo qayb gashaan waxa kale oo mahad celinayaa familiyada iyo ciyaalka yar yar ee meesha ka soo qayb galay sida quruxda badan u soo ajiibay idinkaanu wax idinku nahay idinkaanu idin shaqaynaa idinkaanu sharaf iyo karaamo agtiina aanu ku nahay marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sidaad uga soo qayb gasheen waxaana ku soo gabagabeynayaa dadka reer Somaliland meel walba ay joogaan ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay cadowgiina hoos u dhigo ilaahay kor ha idin qaado cid kasto jecel oo Somaliland oo walaalaha ay ku jira aad baan idin jecelnaa idinkana aad baan idin taageernaa sida noo taageertaan iyo sida noo jeceshin si leeg baan anaguna idin jecelnahay sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi hadalla ka jeediyay qaar ka mid ah mudantii ka soo qayb gashay munaasabada runtii halkan xaflad qiimo badan baa ka muuqata waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore baan u mahadnaqayaa suuqan keenay nabadda isugu keenay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka soo shaqeeyay xafladan marar badan oo horena sidan isugu yeedhay ubadkeena iyo familiyadeena siday u ogaadaan inay dal kale leeyihiin inay calan leeyihiin in maxaan ku dhahdayay dalkan ay joogan maayo dal kale labaad leeyihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigaan magacyadiina kala qaadaynin intiina ka soo shaqaysay waxaan mar labaad mahad ballaadh iyagana u soo jeedinayaa si guud community-ga runtii munaasabado badan oo qiimo laba isugu ka dhacay tii hore Mayda waynu soo qabanay tii Ciid al-Adha ayaa maanta ugu dambaysa oo iyadana aynu munaasabad weyn oo islaami ahayd tanbaynu ku gunaanadnay oo tii Mayda iyo familiyada aynu isugu keeninay runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan waxaan hadalka ka baxayaa labada eray waxay yihiin haddaynu reer Somaliland nahay cidaynu nacabnay ma jirto waxaynu nahay dad marka hore Soomaali baynu nahay ogaada Soomaali waxa la yiraahdaa maaha koonfur iyo inaga maaha wax shan Soomaaliyeed la yiraahdaa jira taasaynu ka mid nahay Soomaalida ab iyo isir iyo dhaqan iyo dhiig intuba way naga dhaxaysaa laakiin siyaasadaynu ku kala duwanahay inagu waxayna dalayaa reer Somaliland 35 jirsaday xornimadaynu qaadnay inaga khaldantay la soo noqday maantana halkay doonayeen gaadhay oo la ictiraafay baynu nahay taa marka hore aan ogaano waxaan raacinayaa inagu waxeena cid duulaan kuma nihina aan xajisano aanu midowno aan meel uga soo wada jeesano ereygan kaga tagayana wuxuu yahay walaalahan Soomaalida من نبعنا وحنا الله هدين نعيب كيس كدايان يعنفقة يوحينو كردي ديدين يهينو هدي إنك وحينو كردان ووح صومالي وكرداء إنك دايان دبتا يبوق أنارك يا إلهي ما كميري الله مرينا يو إنك عندنا عايم إن عندنا علم كذا جوبي ماينو حفلة إنه دبالتجينا وبتكين إنه الله فرحنا علم كودي ود كودي إنه تصينا وحينو يول كينو لين هي ماشى نوس عننا وينو قرنينا كواب سامينو صومالي كواب سامينو يجانو وحن لين هاي
ilaahay dhibta ha idinka saaro laakiin naga daaya annagana dhibtiiyo xagxagashada aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba martida iyo odayaasha haldoorkii Minnesota iyo hablaha quruxda badan iyo carruurtaba mar labaad iyo mar saddexaad bay salaam iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato war Somaliland nimada aynu xoojino Somaliland aynu xoojino aynu isku taageerno waddankana ictiraaf baa la helay waxyaabaha soo socda dawladdan hadda waxoogay u dhaqaajisay kuwa kalena waan sugaynaa biidmillaahi kariim innagu cidna ma necbin cidna ma kama jecel cidda kale ciddii inoo taagta gacantaba waynu qabsanaynaa innagu waay adiga marka yuhuudi la yidhaah iyo marka China la yidhaah kaa ilaahay caabudaya ee yuhuudigaas ehlu kitaabkaba la qaatay soo maaha ka China kaas kana inooga dhow hadday carabi Falastiin wax u qabanayso 40 sano la haystaa 50 sano la haystaa afar waddan baa hareeraha ka xiga dhowr iyo tobaneeya waddan baa xiriir la leh oo Masar baa la leh oo Jazaa'ir baa wax Urdun baa la leh oo waxa la leh Maghrib baa la leh oo Qatar baa xiriir la leh oo Imaaraadka la leh waay adiga maxay kugu haystaan iyagu inay wax noo yeelin bay doonayaan waxba noo yeelin maayaan ma aqbalayna inay carabi noo yeelso innaga ciddaan doona toos u xiriirayna ciddii wanta la qabsan toos u tagayna waxa weeye ictiraafkeenuna uu socon doona ciddaan doonana innaga la soconayna ciddii maslaxadii noogu jirtana innaga kaashanayna dhammaan reer Minnesota waan idin salaamayaa oo ka soo qayb galay xafladda Somaliland demonstration farxadda waxaan ku muujinayaa ka soo qaybgalka aynu soo ajiibnay waa mid laynagu leeyahay waajib ahaan aynu u taaganahay waxaan hadalkayga ku darayaa maanta waa maalin weyn sababtay u weyn tahay waxa weeye yowmul xurriya weeye Somaliland xurriyaddeedii weeye waa soo noqoshadii xurriyadda weeye waxaan idiin sheegayaa in maanta aanay suuro gelaynin oo ay hore u suuro geli weyday in ummadda la yidhaahdo waa isku af waa isku diin waa isku kalar way kala guursadaan carab baa ku midoobi weyday laakiin waxaa waajibi waxa weeye nin walba xaqiisa ha qaato xorriyaddiisana ha lahaado jaarnimaduna sidii nature-ku u sameeyey ha la isu ammaan geliyo Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato toddobkii bishaynu dabaaldegaynay xaflad walba inagaan lahayn muwaadinnimada iyo dadnimada iyo isjacaylka iyo walaaltinimadu waxay tahay baynu mar walba muujinaa waynaynu muujinaynaa intayna dhiiggu inagu jiro naftu inagu jirto waxaynu leenahay Somaliland ha jirto ha noolaato dakalo dawladdu markay dawlad tahay ee calankeedu saa u babadayo nacab iyo cadow iyo ciddii daway lahaanaysaa waxay kaloo lahaanaysaa cid oo jiritaankeeda iyo ictiraafkeeda ogolaata oo mar walba jiritaankeeda u shaqaysa labadaa haddaba waa labada ay noloshu ka dhirsan tahay waxaan leenahay qofka anagana hagaajiya na garab istaaga ee anaga mar walba na garab taagan waxaan leenahay waanu garab taaganahay waananu ognahay waananu gudi doonaa abaalkiina qofkii inaga inaga hor yimaada ee ama fanaan inoogu soo gabada ama abwaan inoogu soo gabada ama social media inoogu soo gabadana waxaan leenahay qofka gaadma nacasiya ila suga gantaalaha golgolo raashaha godobtayda jeclow kuwa lama tegay sida ninka bayaayankii ninka erayaalkii intana hagaajisana waxaan leenahay galladkiina tariya maa gabin alaal hore goore ahaatana waa gudi wanaaggii oo Israa'iil ka kaw tahay dhanka kale intii ay munaasabadu socotay madashaasi waxa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo loogu talagalay inay dhalinyarada iyo carruurtu waqtigooda ku qaataan iyo activity-yo kale oo loogu talagalay munaasabada
gabagabadii munaasabadda waxaa madashaasi ku soo bandhigay heesa muujinaya wadaninimada kana turjumaya xuska maalinta 18 May fanaaniin waaweyn oo ay ka mid yihiin I'm